Shushu Cabdalla marka hore waa kusoo dhaweynaya marka xigta waxaan kaaga tacsiideynaa geerida ku timid Aboowe waa kusoo dhaweynaya walaalo aad iyo aad u mahadsantahay Aboowe sida quruxda badan ay la soo qayb gashay Shushu Aboowe bal dad badan ayaa ku daawanaya bal qaabka uu dhintay dad badankii way isweydiinayaan bal xog kooban inaga sii qaabkii uu dhintay ma la dilay mise jazeero qalinta Aboowe wiilka Allah u naxariisto marka ma ka weynaa mise ka yaraa dad badan ay isweydiinayaan wiilkii oo TikTok ay soo wada duubi jireena mise maya asiga ma aha wiilka sii weyn waa asiga marka dadka waxay isweydiinayaan kulli jazeera ayuu ku dhintay jazeera marka qaabku ugu dhintay markii jazeera la dadku waxa ku soo dhacay badda moogtaa maya xabada ku dhacday kulan wacan saaxiibayaal halkaad iga daawanaysaan waa Asad Jaani aniguna waa saaxiibka Soomaalida Asad Jaani isku soo noqod wanaagsan oo xiiso leh waxaan hayaa muuqaal kale oo ku saabsan Allah u naxariistay waxa Muqdisho lagu toogtay oo lagu dilay walaalka la dhashtay Shushu Cabdalla oo ah gabar caan ka ah barta TikTok iyo aalada social media haddaba walaalka ka weyn Shushu Cabdalla oo ay toogteen askar ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya ayaan idinkaga warrami doonaa wareysi lala yeeshay Shushu Cabdalla taa ay kaga hadashay qaabkii walaalkeed loo dilay iyo sababta loo dilay haddaba intaan idin wadaagin muuqaalkaas fadlan marka hore hadii aad ku cusubtahay channelkiga subscribe saaro sidoo kale page-keena Facebook-ga follow soo dhaho muuqaalkana like saar commentigana ugu soo duceeya Allah u naxariisto walaalka Shushu Cabdalla mahadsanidin waxaa Muqdisho lagu toogtay walaalka Shushu Cabdalla ka weyn Cabdi Fataax ayadoona haatan Shushu Cabdalla iyo qoyskooda ay wajahayaan murug ku saabsan dhimashada wiilkooda ka oo ahaa mid kamid ah wiilashii ugu waaweyn cidda ee indhaha u ah Shushu Cabdalla oo aad u murugaysan ayaa la warantay warbaahinta ayadoona u sheegtay inay aad kaga xun tahay dhimashada walaalkeed uuna tagay haatan halkii Ilaahay ugu talagalay kaliyana ay u baahan yihiin in loo soo duceeyo wiilkan dhalinyarada ayaa la sheegay inuu u aaday dalxiis ama jawi bedelasho xeebta jazeera halkaasna xabad ay ku asiibtay haddaba wiilka ayaa lagu aasay degmada Daynile qabuure ku yaala ayadoona haatan xaafadda Shushu Cabdalla ee ka taagan tahay murug taa oo ay dhammaantood qoysku dareemayaan murugada walaalkood oo guriga ka maqan qadartu waa mid qoran qof walbana wuu dhimanayaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan leenahay Allah u naxariisto walaalka Shushu Cabdalla Shushu oo aan aad u hadli karin ayaa ka warantay qaabkii walaalkeed loo dilay waa kana ila daawada muuqaalka Shushu Cabdalla ay kaga waramayso dhimashada walaalkeed Shushu Cabdalla marka hore waa kusoo dhaweynaya marka xigta waxaan kaaga tacsiideynaa geerida ku timid Aboowe waa kusoo dhaweynaya walaalo aad iyo aad u mahadsantahay Aboowe sida quruxda badan ay la soo qayb gashay Shushu Aboowe bal dad badan ayaa ku daawanaya bal qaabka uu dhintay dad badankii way isweydiinayaan bal xog kooban inaga sii qaabkii uu dhintay ma la dilay mise jazeero qalinta Aboowe wiilka Allah u naxariisto marka ma ka weynaa mise ka yaraa dad badan ay isweydiinayaan wiilkii oo TikTok ay soo wada duubi jireena mise maya asiga ma aha wiilka sii weyn waa asiga curadka ma aha marka curadna ma ahan laakiin wiilkaas ku kaweynaa okay magaciisa ma la wadaagi kartaa Axmed Aboowe ay dareenkaaga marka hadda ka waran maadaama Aboowe uu dhintay kulli qabrigiisa Allah u waasiciyo jannada firdawsi Allah geeyo adi ahaan dareenkaaga waa noocee oo walaalkiisa ka dhinto dareemi kartaa qaab uu noqon karo ama qaab uu ku sugan yahay laakiin alxamdulillah Ilaahay ma iska leh meel inta ka fiican oo aadi Allah u waasiciyo meesha uu joogay Allah u qaboojiyaan leeyahay marka dadka waxay isweydiinayaan kulli jazeera ayuu ku dhintay jazeera marka qaabku ugu dhintay markii jazeera la dadku waxa ku soo dhacay badda moogtaa maya xabada ku dhacday xabada marka xabad la qasdaamis wallahi midaas ay lama xaqiijin karo anigana midaas kama warahayo okay inta lagu aasay marka lagu aasay Daynile lagu aasay guud ahaan dadka hadda kula socda maxaa jeclaa lahayd maadaama Aboowe dhintay Allah u naxariisto murugada iyo tiiraayada anagoo kula qaybsanayna sadartana ku soo wacnay bal dareenkaaga bal dadka ugu dambeyn fariin la wadaag
maxaa jeclaa lahayd waxaan jeclaan lahaa hal arrin bas inay noo sameeyaan inay noo soo duceeyaan inay u duceeyaan walaalkeyga inuu jannatul firdaws alla ku bishaareeyo inta muslim dhimatay allah inuu u naxariisto noogu soo duceeyo aad u mahadsantahay شو ولا كذا بنتين شلال مسكينك تعسوا شلال فرحنا أول ما أنا إذا إنا وقتي لقانا أول ما أنا أول ما بدأ قبل ما شو أبغى بس شو بريء أمدري ولا شلال الدنيا جسيرة شلال الدنيا وياك أصلا تقدر جدا أنا هذا يقول شيء ما فهمت لكن تعرفين واحد قريبا قف من واحد قريبا ما فهمت هذا ما قلنا إذا أنا قلت ولا سميع كتير صار يقول شيء أنا قلت صاريو مو كلا ولا لا ترى لا تقدر حتى ما كان نيجي ما كش أبانا كوي ما دونه وأنا كنت تعرفين أنا قلت ما هي إن أنا أكادو تعرفي إقرار المقو إلى أن حرس بوي أنا أتكلم مقلوي ياقي لكن أنا ما أدري وقدر ما لها حتى وحاول ما تكانا وكاكوا وما سنت يا بايو inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. allah u naxariisto walaalkeen. waxaan u rajeyneynaa in ilaahay qabrigiisa u waasiciyo, jannatul firdowsana uu ka waraabiyo. dhimashadu waa xaq, qof walba waa uu dhimanayaa. haatan waxa inooga baahan yahay ayaa ah inaan garab istaagno walaasheen iyo weliba qoyskeeda annagoo u duceyneyna walaalka ka baxay qoyska ee Cabdifitaax. marxuum Cabdifitaax ayaan inta badan ka mid ahayn dhalintii isticmaali jirtay social media ama kala soo muuqan jiray Shuushu Cabdalla, ayadoona sheegtay inuu ahaa walaalka ka weyn iyada ka oo baraha bulshada soo geli jirin, balse qoyskooda u ahaa laf dhabar ay ku taagan tahay. haatan waa uu baneeyay, qof walbana waxa uu aadayaa halka uu aaday Cabdifitaax. haddaba daawadayaal, aan u duceyno walaalkeen. ducada aan u duceyno oo keliya ayaa haatan waxay tari karta. fadlan qaybta hoose commentiga ugu soo duceey walaalkeen Cabdifitaax. waad ku mahadsantihiin sidaa u daawateen muuqaalkan. intaan muuqaalka xiga ku kulmayno sidaa iyo nabaday.